بسم الله الرحمن الرحيم. sida rag iga horeeyay ay sheegeen waa isbarashiyo soo dhaweynuun hadalkeena uu inoo dambeeyaa waxay la tahay waa ugub in madaxweynaha iyo labadii shir gudoon iyo 10 xubnood oo guurtida ah iyo 10 xubnood ka badan oo wasiir ah iyo xildhibaano kale in dhammaan intaas diyaarad qura soo wada raacdo waa arrin uguba laakiin waxa looga tashado taa loo yeelay marka hore maantana waa sheegay waa qadarin gobolka Sanaaga hadday baaxadiisa tahay iyo dadkiisa iyo qiimaha uu Soomaaliland ku joogo Soomaaliland waa go'aan ay u dhamayd in maanta la xoojiyo haddii Sanaag la tagaayo in aan loo baahanin hebel baa dambeeyay iyo xafiis baa dambeeyay iyo cid baa dambeysay in aan loo baahan waxa kale oo la sii xoojiyay shirka warsangeli markii la yiri waa isu dheeyay warsangeli oo maanta wixii hadala ama safgaran waaya ama madooda dhexdeeda jira waa la dhameyn karaya oo waa la isu dheeyay xaqaana waxa laga soo dhabaaday dawladdu inay iyadoo dhan timaado qiimaha iyo qadarinta shirka iyo gobolka nooleeyahay waa ka aynu ku nimid ilaahay idankiina wanaag baan ku dhamaysan doonaa iyo wixii turxaana in la saaro inkastoo la soo koobayo haddana waxa la yidhi odayaasha waaweyn guddi baa ka hadhaysa inta kale way tagaan guddi baa la idin saaray hadhaysa dee markaa haddii marnin garboodkii reerku beesha halka wada joogto hal eray oo aragtida aan ku socono ah iyo aragtida Soomaaliland dawladda ku fadhida oo baan doonayaa inaan cadeeyo horena mara waa loo ogaay aragtida ku soconaa waxa weeye Soomaaliland sida dastuurkeedu qorayo iskuna wada raacsan tahay aan filayo inaga kala maqnaan isku raacanahay waxa weeye wixii aynu la galaya arina ama heshiisa ama dastuur ama xeera waxa uu asala diinta islaamka bad islaamka fure waxa la taawaa ku heshiisan dastuurka qodobkiisa 130 uu qorayaa mabaadidiisa hordhacuna uu qorayaa waliba waxa inta dheer qodobkaasi inuu leeyahay marka wax dastuurka hadii wax laga bedelayo ama wax lagu daraayo in mabaadida islaamku asal u tahay lamana bedeli karo lamana taaban karo saas ay ahaanaysa wargeeyay marka cid kasta oo hadlayna wax la yiraahdo tana koowno talabaad ee halka iyadana la siman ee dastuurka hore dhiciisa iyo aakhirkiisa oo qorayaana waa to aanan cid isku diiday oo ah Soomaaliland dadka waxa lagu hadlayaa isugu imanaysa go'aan qaadasho wadareed oo talawada lagu gaaray ee ma jiro cid iyo qof tala u doona gaari kara Soomaaliland oo dhan labada qodob haddaan kala ka cadeeyo oo aan jecelahay inaynu wada dhageysano haddaynu odayaasha nahay nin waliba meel tagi doono oo maxaa halkee laga bilaabaya horta dadku maxaa ka dhaxeeya ku heshiin karaya horta labada qodob baa inoo asaasa qodob kala jira oo jecel odayaasha inay sii faro oo aan iyagana cadeeyo halka laga taagay Soomaaliland waxa weeye dad badan marka la yiraahdo Soomaaliland ha wada shaqeeyo Soomaaliland ma la simanaya iyo waxba kala maqan horta Soomaaliland waa intii Ingiriisku xukumayay haddii la yiraahdo markii laga talayay Soomaaliland intii Ingiriisku haystay iyo inihii ka horeysayna yaa ugu miisaan weynaa talada ama ugu hawl badana haddii la isweydiiyana ninka sheegan maayo balse beeshan waxyaalaha loo soo culisay waxa kamid ah waa beeshii dawladdii Ingiriisku suldaankeedii 9 sanadood oo xabsi mustaafirisa dalka ka xidhay isagoo halgan ugu jira xorriyad وتاريخي لبا بيش ورسقلي مركي قبنimada la doonayay ee isticmaalku inuu taga la doonayayna
عدي الله دري وفتجي بقرة كسعودي عدل أقول كل مي سلادين تي لك تجي يو حجرة كيل السعودية هذا الكيس سومال الآن حرية دار ودورنا وحسان ويرنا وضلك هيجا مكان عدي الله ديبي إنجليز وحرية وكادورنا عدن بيروجد اللي ديبي ندور سجلي بهايدون السلطان محمد علي شروه مركز حرية اللي قادر عليه هذا كي مركز على كلا ساري كلا بدل أيره السلطان كي قرأ هاي عيالي قرأ مركز شيء السلطان وصلك عليه ليلة شوقي إن على كلا ساره وكلا بدلوه ده عبد السلام عمر كابريس وهذا ولا الكيس السلطان يسوي مدايو السلطان عبد السلام بهاي كانت شوقي مركز ده على كلا ساري هو استعجله وحكى ساري السلطان سعيد أبي waxaa laga yaabaa inta anigu aan dhigta ka maqlay in badan oo goobjoog ah inay ka joogto ama iga xogaarsan sababaha uu soo culaysana waxa kamid ah beesha inta leh inaan muddada wada hadal Soomaaliland kale waxa weeye waxaan leenahay warday halkii aad beelkeeda hayseen taladeedina waa la sugayay intaas in kale waa la sugayay maxaa qaldan oo saxnaa waa inoo taa qodobka raacinaya waxa weeye inagoo Soomaaliland oo qodii السودان كوجامين إياه وحرية الجلس كقاعدني إياه هو كونفرنس وتقني شروط أنا إنه أوره وقوي جاء صوار ودون نوسام بين قي وين تقني صد سنة مركب تشوفونه وين يقدرت برعنا واحد يكون قاسنا قلا ولا ما هي صارست وهالكذا أكون نقطة ده تنا أول هذا الله هدو أقل جوار هدو نجاحهم هذا اسمهيس قضب كل إسقاه إياه وحوي ورنيح كنا نقول لما دورنا نسون وين يقدرت نور بها الكيس دولة ساك صاروا إنه قال لي لو تكيس سمن أنا وحضر ولا بدور ولا ترمض عين كسر ساح نقول اسمه يعني لكن أضاء الضفر سبعة تيما نقولش وانا نقول لما ينبالت هذا برعاه شيخ أحمد يو صلاة الدين بدن بديت شو تو ما تقول ما هي الشيخ أحمد مركا أنت سوى حاجة ورجلين سواها نوصل ولا يسنى هالكان نودورنا أنا كارنتيني هذا سومالان تايو هذا مستقبل تايو على كترسان وانا نسمع دورنا آدي أدو بتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته